السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله ورضي إلهي وحكم عليك الله. صلاة مغرب مساجد كان ركعتين نوسو في حلال لنا يا أبو لما إن إلهي ونسوه jadi bahwa perasaan itu dia dalam sebarang itu, wa harusku nasihatnya, wa Allah yang Abu Jalla wa Ala anas hasusunnya, akhirat awal kepada yang harus amal anas hasusunnya, tapi dia yang gamal di akhirat yang dalam gamal orang terkait dengan hasusunnya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رب العالمين كأعيائنا له ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعليك نسوسي حسوسين ذا سقفنا مؤمن كإيمان كلا ينفع عيسى إلهي waxaa marka qofka mu'minka la xasuusinaya shayga ugu horeeya la xasuusinaya ilaahay baa inoo sheegay aayadda ku xigta isla aayadda ku xigta ayaa ilaahay inoo sheegaya shayga ugu muhiimsan ee mar walba bini aadamka loo baahan yahay in la xasuusiyo waa maxay waa in qofkan la xasuusiyaa ayaa abuuray uu samaystay allihii samaystayna muxuu kuu samaystay allihii ku abuuray ee ku jirsiiyey ee nolosha adduunyada maaragtaa kugu deeqay maxaa ilaahay jalla wacala uu kaa rabaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun baa ilaahay jinaya insi maan abuuran haddaan abuurtay baa ilaahay waxa keliya loo abuurtay waa inay aniga iyo caabudaan ee aniga i gartaan oo qofka bini aadanka walaadkiisa sharaftiisu waxay ku jirtaa ilaahay jalla wacala garashadiisa qofka bini aadamka khasaarihiisa iyo dulligiisuna wuxuu ku jiraa allaha abuuray haddii uu bara waayo qofka bini aadamka u khasaaraya marka bini aadamka shayga ugu horeya la xasuusin waa maxay waa ilaahay caza wajalla inuu barto uu caabudo uu raalligeliyo uu ka boqo wixii wanaag ilaahay uu farayna aad la timaadid wixii xumaan ilaahay kaa reebana aad ka reebto maqsadka lama abuuro waa cibaado cibaadada shayga ugu horeeya ee maaragtana ku halmaamin kara waa maxay waa maxaa taana ilaahay wadamo dhigo wuxuu yihi maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yutcimuun baa ilaahay insaanka asaga risqiisii ma saarin isaga lama saarin alqamadiisi oo dushiisa lama saarin oo lagama rabo inuu isagu asarsaaqo arigana inay uduuliyaana waxay qabtaan kama rabo baa ilaahay ku mashhuulin maxaan cunaya caloosha maxaan geliyaaya ubadka maxaan siyaaya waxaa lagaa rabaa inaad mar walba adigu hadafaad ka dhigataa inaad ilaahay caza wajalla daacadiisiiyo cibaadadii ugu abuurtay aada muhiimadaada koobaytood ka dhigatid aada ilaahay amarkiisa ku dadaasha shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibiyana waa maxay waa ilaahay macrifadiisa hadda dadku inta ilaahay ay bartaan ayay ilaahay adeeci karaan hadda bini aadamku inta ilaahay ay adeecaana ayaa ilaahay noloshooda nabiyadiisooda aakhira barakay
nolosha bini aadamku kuma xidhna lacag hagaaga nolosha bini aadamku lacag kuma xidhno ashyaa badan iyo adduunyo badan qofku urursadana kuma xidhno nolosha bini aadamka adduunkan iyo aakhira inay hagaagtaa waxay ilaahay ku xidhay inuu bini aadamka noloshiisa laga helaa addoonnimo addoon ilaahay noqo kulli kamaa uriidu akunu laka kamaa turiid baa ilaahay sidan aniga aan doonaya haddaad adigu aada ii yeeshid sida adigu aada doonaysa annaka ku yeelana baa ilaahay kulay waad baahan tahay rasaaqad baad u baahan tahay amni baad u baahan tahay ya nolol fiican baad u baahan tahay farxad baad u baahan tahay amni iyo raaxaad u baahan tahay ciz iyo sharaf baad u baahan tahay waxayna kaa xumaadaana kaa halaabaan ka reertid maadaama wanaag mar walba aada doonaysid wanaaggaa wuxuu ku jiraa inaad baratid ilaahay casa wajalla cabdii turiid wa ana uriid maa yakunu ila maa uriid in aطactanii fima uriidu aataytuka maa turiid wain casaytanii fima uriidu atcabtuka maa turiidu uma laa yakunu laka ila maa uriid baa ilaahay in aadanow adiguna waxbaad damacsan tahay baa ilaahay leeyahay adiguna waxbaa doonaya sida adigu aada doonaysid ma noqonaysa arrintiiyo sida anigu aan doonay noqon baa ilaahay iraadadeena iyo doonisteenu ma soconaysa doonista ilaahay ma soconaysa wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah ilaahay wuxuu leeyahay haddii aniga sida aada doonaya aada ii yeeshid sida adigu aada doonaysana annagaa ku yeelay sida anigu aan kaa raba haddaad yeeli weydidna sida adigu aada doonaysid ma gaadhaysid baa ilaahay ku leeyahay nolosha adduunkan waa ku gaaraytaa nolosha dariiq dhow weya laynoo tilmaamay oo shardi dariiqaasi qofka la raba inuu maro ma aha hanti inuu yeesho faqiirku hadduu dariiqaa maro uu ku liibaan maalqabeenku dariiqaa hadduu maro uu ku liibaan boqor haddii uu wadadaa maro uu ku liibaan ilmo yar hadduu dariiqaa maro uu ku liibaan kuweyn hadduu dariiqaa maro uu ku liibaan raggan hadday dariiqaa maraan way liibaanayaan haweenku hadday dariiqaa maraan way liibaanayaan waa dariiq shuruudan maadadan adduunyada aanu ku xidhnayn keliya qofka laga rabo inuu ilaahayna rumeeyo uu nabi maxameda dariiqadiisa baa calayhi salaatu wasalaam dariiqadiisa ilaahay macrifadiisa allah ilaahay waa qeyb waa laynaga qariyey aakhirada waa qeyb waa laynaga qariyey camalka saalixa manfacadiisa waa qeyb waa laynaga qariyey jannada aan u socono waa qeyb waa laynaga qariyey malaa'igtu waa qeyb waa laynaga qariyey ruuxda bini aadamka dhirkiisa ku jirta waa qeyb waa laynaga qariyey shaygan qeybiga ee naga qarsoon baa qiimo leh waxa mushaahadaadka inoo muuqda qiimo ma leh jirka qiimaha ma leh jirka waxa qiimaha u yeelaya waa ruuxda adduunyadan inoo muuqato qiimo ma leh waxa qiimaha le waa aakhirada qarsoon weeyaan makhluuqan inoo muuqda nafciyo durri midna ma hayo isagu ka naafica baarigu waa allah weeyaan ilaahay waa qeyb maadada waan arkayna lacagta iyo guryaha iyo warshadaha iyo maaragtaanay ashyaada camalka saalixa hawaabkiisuna waa qeyb waa laynaga qariyey shayga laynaga qariyay baa qiimo leh shayga inoo muuqda qiimo ma leh kale adduunkan dhan waxaa qurxinaya waa bini aadamka bini aadamka isagana waxaa qurxinaya waa diinta weeyaan adduunkan haddii bini aadam laga waayo ka warran muqdisho markhaatimo doontaa dibdhig waa iska garanaysaa xaafadaha muddada imika laga joogo maaragtaan ee dhowr sano 8 sano ka hor waa laga baxaya markaa kusoo noqotay seed ugu timaadeen bini aadamkaa qiimaha leh bini aadamkaa qiimaha u yeelaya aqalada bini aadamkaa qiimaha u yeela warshadaha bini aadamkaa qiimaha u yeela dharka bini aadamkaa qiimaha u yeelaya gaariga quruxda badan ee bini aadamkaa qiimaha u yeelaya lacagtaad isticmaalaysa bini aadamkaa qiimaha u yeelaya waxaan adduunyada yaaloo dhan innakaa qurxinayna haddii bini aadamku meesha ka maqnaada adduunkana qiimo male bini aadamkana waxaa qurxinaya waa diinta allah garo oo rasuulkaaga maxamed calayhi salaatu wasalaam raaco ume oo xaqa ilaahay garo oo xuquuqda bini aadamka garo
وصد النفتاب دوني سهون ولا نسد إلهي دوني يوم ولو إلهي هذه الأوبا بالآدم كان وحا قيمة أبو يرنا يوديك وحا كبرحنا يادين يوديك ما هم مادة بالآدم وحا كبرحنا تعليم تبادل كبرحنا بيسا تعليم تبراك كبرحنا الشيء هو رئيس من هذا كان لقدون إنه نفسي سكوكو حي ومعي الله يقوم بقرب قرب الله شاهدوا قرب سيدي النبي الله يقدر تعمل رغم كنا وبطل الله فالله دائما والأنبياء عليهم السلام صدقتك بالآلة وحي أركي وأمن السنة وأمن السيئين أي نبي ذو أمن السنة إلهي أمرك عز وجل قصص فرمضان بان إلهي قرآن كان نقول شيئا قصص فرمضان قصص فرمضان بان إلهي قرآن كان نقول شيئا قصص النبيين وكا إلهي يحيي تفسير الحمد لله maanta inagu muslimiin baan nahay islaamnimada ilaahay baa nagu dhaliyay dad badan baa adduunyada nagula nool dusheeda oo ilaahay deeqa caabudaya qaar baa cadceed caabudaya qaar baa dhagax caabudaya qaar baa dab caabudaya qaar baa biyo meel taagan caabudaya qaar baa nebi ciise iyo hooyadii maaragtaana daba fadhiisto oo caabudaya ilaahay kaama dhigin adiga kuwa midna waxuu kaa dhiga muslima shahaadanaya muslim laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sala allahu alayhi wasalam nabiy llaahi muusa calayhi salaam ayaa ilaahay weydiiyo ka yidhi yaa rabbi kelmadaa kugu barya maaragtaana isii deedna markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah dheh kelmadaas markaasuu nebi muuse yidhi addoommahaaga wan wanaagsan kelmaddaa way yidhahdaan mar walba iyagu yeetu aniga ii khaasaan raba yaa rabbi isii markaasaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku yidhi yaa muusa toddobada cer iyo toddobada dhul haddii miisaanka dhinac kafal la saaro oo kelmaddaa dhinaca kale la saaro kelmaddaaba ka culus baa ilaahay kelmadda carabka marka laga yidhahdana waa islaam marka qalbiga ay gashana waa iimaan weeyaan marka jidhkeena ay ka soo baxdana waa camal saalixa weeyaan wayna wada socdaan ma kala hadhi karaan oo kelmaddani qaybta hore laa ilaaha waxbay diidaysaa ila allahna waa ihbaat waxay sugaysaa qudradda ilaahay caza wajal iyo facaaliyadda ilaahay jalla wacala waxaan makhluuqa adduunyada dul yaalla oo dhan ha caabudin baa lagu leeyahay ha baryin ha weydiisan hana rajayn hana ka biqin ka baryada iyo cibaadada mutaystay waa allah dhibiya dheefna ilaahay mooyaane cid kale kuma hayso wixii ilaahay qadaron baa adduunyada ka dhici waxba ka dhici maaya wixii ilaahay bixiyo cid ma mancin karto wixii ilaahay manciyana cid ma bixin karto haddii ilaahay naxariis uu soo diro cid ma celin karto haddii ilaahay naxariista uu qabsadana cid kama soo qaadi karto haddii ilaahay nolol kuu qadaro cid kuma dili karto haddii ilaahay geeri uu kuu qadarana cidna kuma noolayn karto haddii ilaahay faqri uu kaa faqiir uu kaa dhigo faqri kuu qadaro cidna qani kaama dhigi karayso haddii ilaahay qani uu kaa dhigana cid faqiir kaama dhigi karayso amarka ayaa iska leh allahu rabbulcaalamiin baa iska leh qisaskaa qur-aankay ku taalla qisaska nebiyado dhan waa maxay waa didan makhluuq oo dhan bay nebiyadu nafinayaan si dadku ilaahay ugu xidhmaan ayaa ilaahay inooga sheegay wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بإلهي عز وجل قصص كالنبيين محالا نقول شيء maaha inaad akhrido unood iska dhaafta lama doonaye waxaa la doonaya qisaskan qalbigeenna inay iimaanka ku sugaan baa la doonaya inuu qalbigeenna iimaanku galo laa ilaaha illa allah inay qalbiga gashaan la doonayo waxa bini aadamku ay doonayaan ma soconayo ee bal wuxuu ilaahay doonaya adduunyada ka dhacaya fircoon wuxuu isku dayey inuu nebi muuse adduunka uusan iman dhaqaalihiisa o dhan wuxuu ku bixiyey muuse calayhi salaam adduunka inuunasan iman markaasuu islaam kastoo reer bani israa'iil oo caloosheeda ilma ku jiraana albirideeda askari intuu u dhigay buu ku yidhi hadday wiil ay dhashana bereeya oo gowraca hadday gabadh dhashana inoo daayo wuri innaga ku xayaadi doono ku nolan doonay ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlahaa shiyacan yastadcifu daa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum
ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون إرادتي سوى محي إنه ويل كي ريبن إسرائيل قلنا الشبه إنه قورعو سيدا نفق حولها الله قال إنه يقرر هنا نهدي إنه لتنا الإسلام لألا يأتي موسى عليه السلام محي سيدا أصمين يا فرعون وحي سحراري كهنده وشاقا ريبن إسرائيل ويل بارود لندونا ويل كاسي سبب وحول نمندونا ملكي يا غير سوري سوى ملكي سأبقى يبويري يركا أدوك هينو سليما على سمين هذا قبت أدوك هينو سليما وإرادة مخلوق وتأس فراعينت الزمن كستني ويجوغان عالم فراعينت فرعون صعد لكن فراعينت ويجوغان كوي درسي الله شيء ويجوغان أدوك في كل الزمان حق إنه يمادنا ويكدك الله يا لكن حق إلهي ما صوب الله كان إلهي ما قوله سيدا العاد هذا يصوب بحضو والبشر كادوية كنا رسوي مادان عريقاس قعنتو ذا بكون عليك رأ سيدا العاد بني آدم كأول سن أي سبولة هين أي قعنتو ذا بكون عليا حق إلهي حطو عالم كإمادنا فرعون وحي اسكت دي العاد كسوا بعدوة أرض مصر إنه قعنتي سكون عليو لكن سنة الله عز وجل ومحي إنه نبي موسى أدوية يتو كسوا بيرو ولما قصر يا فرعون صد صر وكعر وقربوا بربان وما تشاءون إرادة المرء بين آدم وإليه تجاهنا كسر دونست هذا هي دونست عند الله ما كسر نظام كان علم واحد كسر النظام كإله نظام كبني آدم كإيش الله وأركا لكن نظام كإله إيش مقابل إيش نظام كأنه بصر قال أبو أربع بصر نظام كإله أين بصيرنا بروفنا ما بصيرنا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم بين أهله الله وحي الإلهامية قول له لي إنك يا موسى نوج الناس وحيث أقل كل حيث هذا ضبع ضدنا بإلهي كيري لك عمارك تاني وليه كتور الله بقى أمرك العنس وين أمرك كوبات ألقى كو حيث الناس كبروج لكن هو يأتوا بيركا وجلسيه مر والبواد والولي سوى العبسان الساعة وهي عينك كيف العبا من هذا ونيجي اليوم المدوندون يه هذا ضبع ضد بإلهي كيري صندوق الطول سكير إذا بدأ كتور بالوي وفوين بقى بدأ كل حكاية المير بدأ كتور كورا إلهي قدرتي سمك وعالم كظاهرين يوحوا استعمالها عقلك بني آدم كوحكهر إيمان إلهي استعمالها عقلك بني آدم كوحكه أفسد يا إلهي قدرتي سمك ظاهرين وحدتكم أي استغراب سريع أي إلهي نصرتي سمك ظاهرين ومعيدي سمك ظاهرين والنظام كي سكسر إحساني والنظام كعالم إلهي ربعين وكبدل الماذا قالوا حيا نرى بين إسرائيل يمتلت وعكبت الصندوق يسمع وما حد كان يجي ويل باندلو فرعون قالوا بابا يعني يقول رعي صندوق يسمع صندوق موسى يعني العالم كما مركز صندوق وكان مركز أورا لدوس غالب وقصر فرعون متجي سمارة كان سرته وشير وأنا المسكين ضعيف الإيمان وأي النبي موسى تذكر لقاش ونح سارايو وريبن إسرائيل مسلمين بها يمركوا جهره وأولاد النبي يعقوب عليه السلام وذرية النبي كسر جديد وياه ما دام دينتي إلهي ومطلق أي كجستين ضعيفين إلهي وعبوصل للعدو وموصل فرعون بين عبوصل لدي العين الكيس وواحد ماذا مسلمين يأتوك الجمهورون هيسويها لكن دينتي إلهي عز وجل لدنين وايي لغو عمل فلي وايي لغا فكر وايي لغا شرعين وايي مسؤوليتي الهي لو تلقى المسلمين اي فهم وايي دينته اي فهمين كلي واتو كدايب حال لغا ربا الهي عدو ما تلو وصل لهنا في كل بلاد وعيبس قصر كيف فرعون ويمد بوابين تبقى قدر حاجات صعبه وبعد السر على السرقه ايات فرعون الشيء والأضل معنا فرعون الظهور جاي ماي أنا كم شيء بي سلام شيء يسيد ده يحدث أنا وسام خم فرعون باور كي لقى شيء وبيقول لي بقى يجي سوداني
لكن يونس ودوان هلكا يجوجي هلكا هكا قيمي هلكا مركو استاغين هذا كيف إلى هيك كحي الله أكبر أفكو تاكتاكا يا بس سبحانك يا فرعون يقول لي بالله وانا قاعد يريد مركز دبته لوga saarana hadalka Ilaahay u furan marka la soo ceshan hadalka laga xiga الله أكبر فرعون wuxuu leeyahay ka shaqeeyay kana qorta lagu gooyo قدرة الله صدوقي بيقول ذلك وبيجي بكتبته فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بإلهي هذا كيف فرعون باهلي طلع لي مركي هلان بالي وحي أركان صندوقي والمير وعيالي أركان بالي مركز إلى المي إلى الرادين أنك أهينا ده نوحا نقضنا مقربين فرعون بقول نقولنا كرفن لقيس مركي قصر إلى سوق لنا فرعون وكان أرض فرعون رأي ملفع موسى إنكم درجات وهالكي وقضى الله عليه بالي المي فرعون مركي موكين بالي فرعون مركي موحول وإساني كي ملكي يزولين وإبا إساني با سيدو قرأتان يقولوا سيدا عليه ويفيرنا إيمان ذلك يقول مر أنه يمرك أقال إن إلمها يخوفك له قادنا وإلمي يجيس مر أنه يمرك فرعون هو تيسال الله نقنا سيدي نيو يقول يا غاية ورسولنا الله محوه كان تيجي مركز وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مركا سوري كان أنا جاي المين نقول ما يوبرو جلاي هذا أكون نقدر هذا بكوني بالي كان أنا المين نقول ما يبغى قف كنا نقول جدا السوق هيك صار كيف المين نقول ما هذا أكون نقدر إسكابه وحي علماء دول هذا إنك أمر كإله قادم ويا أمر كإسلام في سوقاتها أمر كإلمي سوقاتها أمر كقبيل كوقاتا أمر كمارة تاني مدير كوقاتا أمر كإلهي هدو ضفق قيمين وعينا بني آدم كلو سيدي صوبة إلهي عمره ودي قالوا فرعون أمر كإلهي مديدي أمر كإسلام سوقاتا وانا ترضو كجبا يا خلاص إلهي وحوق قدر يقصر جي فرعون انتو موسى كانوا إنه موسى عليه السلام لح صد الصنع إنه قصر كافر عقود نحبر بعض كعنتايو وكعبه لا إلاليه ولي مجالنا مركو قال عيدا أي راعي إلاليان قول لي هذا اللي كانوا وينك البقر كان القيس كنا ولا أو وين أسلات البقر كأيا الماء هيستون أو ما كان هيستا أو ضل كنا لقى يقالون على أبوسه وقصر أقل كأيو بقر كنا إلهي يقول لي فرعون حوض مع سنة الله يمسندون كيما إلهي وحوق قدروك وآميو فيسليين انتو موسى أدون كيمادو ولما قصر يا فرعون انه كن احبر بعض لك أمر قشع أمر في كل زمان وفي كل مكان إلهي قدرتي سمره ظاهرين ينا وحق ظاهري الشيء بني هذا كعقل بوغا خلاص توسنوا صد سنة قصر يا فرعون عمره كل ولا هيا إلهي كسر قلبي تصدق وقت بركسنتين وعلماء مرة تفسير كذا كما قشع بعديها يميقا يا الله صاروا أرجلاء أيون نقضي حكمة داري الله رعي ومحيب علماء ذلك ما دام أقل بغر موسى كبر باري وحو كبر باري نرشد حياة التعيش نرجل عسم وكبر باري راحة بدن عمتب بدن وردن بدن معان بدن نصشب بدن مركاسا إلهي جل وعلا وحو دونيا إنه النبي الرسول وكسوه بتصومين ها وعلى هرت نلشي مقالة وكجل عقل كبقرك هذا قصر وتوصل عليه شعيب هو سوجو أديكها صبرته الشفقة دي رحمتها صبرته قال جرين لقمة دقينة أرجل أيا لقى دقين وعلى راعنا بالي وحوها البضل أرجل الله ده يجيل مكان يجي هو بضل أرجل هو أرجل بلا بس يا أحمد أرجلوه من نسنا ما فريسنا جلدروه مساحكا لو جلكو جيد بسواس من سبع عاموس كعبي وسكشا كيسان شيدا والله كأيغانيا
لكن إنك عليك نجوا ما تقول أبوش وصدر عليك أمر نجوا حتى موسى عليه السلام عليه بقول دالي من العلماء بقول دالي لأن مركز يسوع كم بقى يا عليك إنه وراه وكضفه أي كيد وصح لمن العلماء لأنه وحوك عليك يوم ماشي أنا جرين يوشي يصير ماشي أنا نقولين مركز عليك دون وحوبي من المال درع عليك يوم ضاقيا ورابين وش النبي موسى هيسوس ده وتاجي وقربانك كوي عتقصوا علينا يوم مركز النبي موسى يا مويري ما وراه عليك إلى عليك سيكون بعلا مركز هاتف وقوم على المواقي سنة كل كما أريد أكون لك كما تريد صدق أنك أنظر إن هذا موسى ربنا يشد صدق أدوك أنظر سنك أقوياء كتاب الفوائد بكبر ابن ذي مردوز رحمه الله صدق أنظر هذا بيشد صدق أنظر هذا أنك أقوياء مخلوق أنك أسخرنا بك عالم أنك أقعدت كونه جرت رسالة صوت تربية توصل كده مرة جرت رسالة صوت لسن رجعني ما يعد عليك باجوات كسكرة سعدوات كسكرة هردلانوات كسكرة لغوات كسكرة يا دلعوات كسكرة بحروات كسكرة كليوات كسكرة قبوات كسكرة أيا هذا وحال الآن هذا الدرس يجي كلا الله برا درس يجي روح لسامر كإله المبرد يقينت يا الله برا يا يقينت النبتة محيت يقينت النبتة وكجبل الطور إيمانيا الأورانيا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وعقعت من كوها ستمام حي وأشيدي وياك أرجع يا جمالك موطن وصوع إلى يجيتك أنا نواتر صدا منافع بدل وش وإلى العين مركز الأول وش هذا بالطور وش يمر النبي موسى طور عليه السلام إلهي وحو بدل أبس إلهي بدل تقررني أنت بدل وش وحي وسنتا وأبس ده يسكت دلا وش اللي قبل كرسي اللي قبل جاري اللي قبل موبايل اللي قبل واحد تذكر مقالات رمقال باستعمالها اللي قبل شيء غيرني وانت بدنا يكدك توينك كبقى ايا وش لو بدل او ارضي صار قالوا غير بس اني لا يخاف لدي المرسلون هو اكثر اللي قدر ما بقى بعد الحين سابقوا هذا مخلوق مركور قلبه مدقاقي ابي سنول باكدك وعادوا قاتا نظام كعالم كنظام كإلهي بكجرة كعنتيس أنا قال وحب بدلين وياه شيء ما فعل هذا ترى ما فعل إلهي باقلي شيء ما ضر هذا ترى ما ضر إلهي باقلي دكان قاعدين ما فعل قصة أحمر وحدوا إلهي دونه وياه داود الاستعمال ليس ما فعله حطيت رطينا كفايده وحدوا إلهي سوق اليوم وياه المها وما فعله كويا شهادات دونيسو وحدوا إلهي ما فعل سوق أحمر يوم وياه بيو ما كين كان هذا هذا دونيسو وين بيها أمرك إلهي ما فعل صوت حمريان وياه أمرك إلهي وغيب إيش بني آدمكم ما قبضته بني آدمك إيش سوحي قبل سواح المشاهدات كان بير داو سكول مهرب شركة أشياء أحسن شيء مقابل لكن أمرك إلهي ما بكون بحجرة بير داود المنفعال إلهي ما صوت حمريان رصاص وين وفدش إلهي أمر بيسير كل ليس دبر رأس الله يقول برصا لو تري وهذا نسبه الله صلى الله عليه وسلم لما شاء الله قتري مع ذلك ما تقول قال بحبنا أساسا إن يكون عليه كرسي يكون ضمن منعي كرسي بدوشة سرير بدوشة يكون منعي تعددت الأسباب والموت واحد بل أسباب الله لمن يوم بدل مويه لكن الموت هو متكلم ملك الموت ما قفل بالروح لك قبله مركي قبض الأرواح ملك إلهي ومدرتي أيها ملك يا رب أضمانك إن ونحسن إيهم إليه سيقرن ما الملك الموت كيف أصابه هيك لقيت الإمام مركز إلهي مي أسباب بدن الله لتعيا سمين دون أيو عبادك ما شاء صدق ما بيسو ما قشة قفل ليه ملك الموت كيف أصابه رزاز بعد شيء ضب قولتين قاري واجوري على الحمام قولتين
dhiigana ku dhacay sokorigu waa sokorigu qabay xabadun baa qaatay gebigiisiyo halkaa ka gasho xagga ka baxday wadnaha istaagay malagii baa ruuxda ka qabtay meesha la soo dhigay mamaayo fa nidaamkan inoo muuqdo oo waxa ilaahay ku qariyay nidaam qaybi la yidhaha qayb iimaanku markaa waa maxay gaal iyo muslim hadday ku kala wecdaa gaaladu waxay aaminsan yihiin waxay arkayaan ee nadarka la yidhaha mu'minku wuxuu aaminsan yahay waxa khabarka la yidhaha buu aaminsan yahay waa qur-aanka iyo xadiiska rasuulka warka samada la rabaa qofka muslimka inuu qaato uu qalbiga gasho khabarka samada xaalaad keliya saameeyaan maaha waxaan caalamka nidaamka bedelaya waa ilaahay jalla wacala meel baa abaara meel baa barwaaqa meel baa colaada meel baa nabada mid baa faqiira mid baa qaniya mid baa hanuunsan mid baa halluusan mid baa buka mid baa caafimaad qaba mid baa dhimanaya mid baa dhalanaya nidaamka ilaahay jalla wacala isagaa ugu talagalay caalam bani aadamkuna nidaamka ilaahay ma bedeli karaya ma bedeli kara nidaamka bani aadamka nidaamka ilaahay halka muslimka iyo gaalku ku kala wacdaan bay culimadu leeyihiin waxaa u daliila amar ilaahay inay ushu ay tahay mar allii markii fircoon uu qasrigiisa yimiday ilaahay waxay ushaada dhulka ku dhifo aqalkii fircoon nidaamkiisa usu dhifo badii markay yimaadeen ushu badda ku dhigta nidaamkii badda ilaahay ku bedelay harraad baa qabtay reer bani israa'iil ushaada dhagaxa ku dhifo nidaamka dhagaxa ilaahay bedelay waa dhagax bannaankan iska yaallo sida u malaasa oo 12 kilobiya ka soo baxaya ka waran markay qabiil walba markay biyahoogii ay ka qaateen ishoodii ka cabeen weelashiina ka buuxsadeen buu damcay muuse inuu ka tego qaadaa lagu yidhaha awrkaaga saaro markay reer bani israa'iil biyo u baahdaan usha ku dhifo dhagaxa dariiqiina 12 dariiq meesha biyuhu hadda ay ka dhaqaaqaan waa qoyaan baa lagu yaqaanaa laakiin biyahan halkay ka dhaqaaqeen ee geeg baa laga dhigay yaa doonay amarka waa buqcadda arlada ku taalla baa la yidhi ee hal mar keliya ceedda aragtay dibda baa ceed u arkay hal maalintaasa ceedda aragtay leha buqcaddaas maalintaasaana ugu dambaysa markay muuse iyo qoomkiisii badda ay ka gudbeenay ilaahay badbaadiyey ayuu muuse damcay dariiqa inuu ka xidho markaasaa lagu yidhi may arrinku saad moodaysa maaha amarka annagaa iska le adigana waa kugu badbaadinay waddadan isagana caalamka ka qabanayna ur kibre iska soo cabo waa hal wado ayaa ummadna lagu badbaadiyey ummadna adduunka lagaga qabto lagu halay ilaahaasi caza wajalla qudradiisu maantadana way shaqaynaysaa caalam waa qadiir calaa kulli shay laakiin culimmadu waxay yihiin qudradda ayaa ka faaidaysanaya maanta muslimkii iyo gaalkii waxaad moodaa ilaa man raxima rabbi mooyaane waa mushaahadaadkaa la aaminsan yahay mushaahadaad waxaa mushaahadaadka inaan aaminay u daliila muslimiintu dhulka gaalada ay u qaxayaan maanta gaaladii baa le war naga joojiyo naga qabta meel uma hayne gaaladii baa le war muslimiinta naga qabta qaaradan africa dadka ku nool meel uma hayne ayaa naga qabto naga joojiyo halkiisa lacag ku siinaa bay leeyihin
daliil waxay u tahay inaan isku caqiide noqonay ilaa man raxima allah mooyaane inaan isku aragti noqonay waxay ahayd aragtida muslimku inuu muslimku yidhaahdo raaxada ilaahay baa haya amniga ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya hinada ilaahay baa haya barwaaqada ilaahay baa haya waxaan u baahanahay ilaahay baa i haya waxa iga maqana ilaahay baa i haya waxaanayse ilaahay baa i siiyey jalla wacala waxa iga maqana ilaahay baa haya walaalkay wuxuu haysta ilaahay baa siiyey waxa ka maqana isagana ilaahay baa haya cid kale waxba ma hayso yaqiintaasuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam 13 sano uu maka joogay waxuu saxaabadiisa ka dhaadhicinaya laa ilaaha ila allah 10 sane madiine uu joogayna waxa uu ummadda barayay muxammadun rasuulullah sal alla alay wasalam qur-aanka maka ku soo degay dhowr iyo 8 suuradood waxay ka warramayaan ilaahay cadamadiisa aayaat alqur'aanigaas ee makiga waxay bayaaminayaan ilaahay cadamadiisa can ariiq aayaat alkawniya bay ka bayaaminayaan aakhiradu qur-aanka makigu inta badan ka hadlaya waxaa kaluu ka hadlaya qisas annabiyiin walumam ummadihii naga horreeyey iyo nebiyadii wixii dhex maray buu qur-aanka ka warramaya makigu waa laa ilaaha ila allah buu tarsiikinaya juzcamo oo keliya ayaa 19 meelood ilaahay ku sheegtay inuu arladiiyo samada isagu abuuray yaa ku haysta wuxuu ugu soo celceliyey ilaahay waa hay ayuha albashar weeyaan ha kaa dhaadhacdo khalqiga ilaahay isagaa la keliyoobay abuurkooga amarka caalamka socdana isagaa la keliyoobay laa shariika lahu fii khalqihi walaa fii amrihi khalqiga isagaa la keliyoobay cid la sheeganaysa ma jirto cid odhanaysa caalamka waxaaba ku soo darnay ma jirto amarkana ilaahay isagaa la keliyo amarkan isagu maale alaa lahu lamru walkhalq amarkana keligii baa leh oo waxaa adduunyada dhacay o dhan isagaa faysaday fii cilmihi 13 sano nabigeenu saxaabadiisa wuxuu ku barayay maka laa ilaaha ila allah abubakar iyo rasuulkaasi fadhiya markay soo degtay xamaalata suuratu tabad yadaa markaasay u timid maaragtaan islaantii abilahabay tiri yaa ababakar aaway saaxiibka maanuu maanta maxamedi gabay igu caayayaa bay tiri uu naari u sheegay inaan ku dhacay haddaan arki lahaa maanta bay ku tiri dhagaxa ay too qaadaan maskaxda basho ka siin lahaa bay tiri rasuulka abubakar garab isku haya sana soo afugay markay isii jeesatay buu yaa rasuul allah mina ku arkay markaasuu yaa ababakar araggay aniga igu arki lahayd ba ilaah ka qaaday awoodaygu aragta male ishan inay wax aragto amarka ilahay bay u baahan tahay dhagtu inay wax maqasho amarka ilahay bay u baahan tahay carabku inuu hadlo amarka ilaahay buu u baahan yahay gacantu inay wax qabato amarka ilahay bay u baahan tahay maskaxdan inay wax fahamto amarka ilahay bay u baahan tahay lacagtaad jeebadda ku haysata manfaca inay yeelato ilahay bay u baahan tahay markiisa kam yaa lacag la maanta lacagtooda waxba u tari laha oo dawo kuna lacagtu daktar walba la geeya caalamka oo la yidhi inaad noolaato ma doone ha bari sacaad iyo calanana cun dawo kuma haynana lacagtu waxba kuma hayo kam yaa lacag ilaahay siiyey bisababi akhlaaq xumidooda aan ummadda dhex socon karin lacagtu may wax tartaa markaa kam yaa ilaahay dhaqaale siiyey oo awlaadooda ay ka halaabaysaa ka xumaanaysa awlaadooda kam yaa dhaqaale haysta oo ciriiri ku jiro oo isdilaya markay nafta garan waayaan meelay u baxsadaan markay garan waayaan oo isdilayaan waa gaaladaa ka mid a nebiga dhaaf ilaahay baa ahay maka markuu nebigu joogay sal alla alay salam waxa u badnaa ummadda kala hadlayay yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu madiina markii la yimideen wuxuu nebigu ka bilaabay hadalkiisii afshu salaam waatcimu aطacaam wasiluu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam laa ilaha ila allah du caqiidaday saxaysaa muxamadun rasuululahna caadaday saxaysaa caadada madiinuu yimiday hadalkiisi horeey wuxuu ka bilaabay dadow
salaanta dhexdeena faafiya. salaadu waa maxay? waa isku duceeya nabadgelyada ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo barakaadka ilaahay dushaada ha ahaadaan. salaada muslimiinta la dhex mara waa isku duceeya weeyaan. raximkana xidhiidhiya, dadka baahanna cuntaysiiya. habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada. jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaan bu rasuulku. madiina markuu yimid waana kaa bilaabay. qur-aanka madaniguna axkaamtuu ka warramaya, xijaabkuu ka warramaya, soonkuu ka warramaya, zakaduu ka warramaya, jaarka xaqiisuu ka warramaya, yaa qiimadu xaaraan inay tahay buu ka warramaya, dulmiga dadka la dulminaya buu ka warramaya, zakada iyo sadaqada cidda ay ku baxaysa buu ka warramaya, xashkii axkaamtiisii buu ka warramaya, umadka tarbiyadoodii buu ka warramaya, dumarka xuquuqdoodii buu ka warramaya, musaafirka xaqiisii buu ka warramaya, ibnu sabiilka xaqiisii buu ka warramaya. dadka diinta ku cusub sida loo tarbiyaday buu qur-aanka madanigu ka warramaya. madiinat almunawara waxau nebigu ka bedelay caadadoodii buu ka bedelay. caadadoodii buu nebigu u bedelay, cibaaduu u bedelay caadadoodii. nolosha caadada waa maxay? waa inuu qofku siduu rabo isagu u seexdo, uu siduu rabo u cunteeyo, uu siduu rabo u socdo, uu dharkuu rabo u xidho, uu ciyaalkiisana wuxuu rabo isagu u baro, uu siduu rabo u guursado, uu siduu rabo maaragtay masaajidka uga baxo, uu siduu rabo baytal khalaaga ugal u soo xaajoodo. noloshaasi caadada ayuu nebigu u yimid caalamka inuu u bedela cibaado. haddaad seexanaysa dee sidii nebiga u seexo, haddaad cunaynaysa sidii nebi maxamed u cuntee, dhar haddaad xidhan dharkii nebigu jeclaa xidho, oo sidii nebigu u xidhanaya u xidho culimmada weydii. haddaad guursanayso guurkaaga waa inaad waafaqsiisaa sunnaha nebiga sal alla alay slam. haddaad safraysid safarkaaga waa inuu sunnaha nebiga waafaqaa. haddaad ganacsi rabta inaad bilowdo, culamada u tago cilm albayci washara ka bara masaajidka. cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa suuqa madiine intuu galay buu ku yidhi, ganacsatadii buu ku yidhi, laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha fi ddiini. suuqa yagaa nin wax ku iibin karaa ma jiro ilaa nin miskiinka nebiga intuu yimiday cilm albayci washara soo bartay mooyaane. noloshii oo dhan baa la bedelay mar keliya. caadadii baa loo bedelay cibaado. kii guursanayay sunnihii nebigu waafaqsiiyey, ilma hadduu dhasho sunnihii nebigaa la waafaqsiiyey, tarbiyaddii ubadka tarbiyadda islaamkaa laga dhigay, jaarka xuquuqdiisii calaa tarbiyat alislaam bay noqotay. muslim ilaa magaaladii madiina mujtamacii ku noolaay oo dhan uu noqda mujtamac mu'mina oo muslima. mu'min qalbigiisa iimaan ka buuxo oo ilaahay garanaya, aakhiradiiyo jannadiiyo naar garanaya, ku xisaabtamaya. muslim oo hoggaansan 24 saacadood oo noloshiisa min dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa diinta islaamka ku camal falay. ayna naxnu min hada maanta? nolosha ummadda aad iga joogtaa maanta waxaa noqonay weel madhan oo afka kala hayo oo dhaqan walba ku soo dhacayo. dhaqan walba ay nagu soo dhaca maanta. unduru mujtamaca muslimiinta caalamka jooga maanta. iska daa dalkeenna, iska daaya ard alxaramayn maka iyo madiina dhallinyaradoodii baa la qayiray. maanta reer galbeedku qayiray. wallahi ayaan dara kuwaasay ku dhacday maanta. xajkii dhaweyta annagoo joogna ayaan meel supermarkeeda alaabaan ka iibsanaynay. baabuurtii waxaa ka soo dhaadhacday dhallinyar sugalo gaagaaba wadatay. waa maka waxaan joogna. odareer jibuuti oo ila socday baa yidhi waryaa sheekh xuseen hee والله وصل باب سوا قالوا هو عرب سعوديين وهذيك أركان ومكاويين ولبن ورحكات كنا لتيما قولوا مكة منهم مواليد مكة ما شاء الله ما شاء الله. وذاك نوحي إليها مني معنا يا مني شقابة كل هذا شيء بيقول عليه بركاس أقول نوحي إليها نلشنا تكون نوشيني مكإنكم أنا أقول شنيا سجاشنا دي بالرجيم ودي صور نافع surwaal gaaban oo la qaato sagaashanadii baa noogu dambaysa ka dhagud siduu baa na kuli yaki. ninkii dukaanka iibinayay baa nagu yidhi waa lana bedelay. waa ninka dhalinyarteedii waa ninkaa ujeeday. timahana sidaasay u xidhayso dumarka. midna hilqad buu sitay. hilqad baa tiraada soo maha waa dumarku iskala dhago ya surwaal gaaban oo weysay.
baabuurka ugana music baa ka baxay bog 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 bacd baa ka baxaysa makana waa la joogaa taqyiir muslimkii la doonayey inuu caalamka bedelo ayaa isagii la bedelayaa weliba innagoo dalkeennii joogna ayay reer galbeedku ina bedelayaan maanta leanna weel afka kale hayaata wax walba ku dhacaya فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركب المسلمين تؤكدر عليهم حياة الأغيار بين سوق شمال يهود والنصارى من كيرا إلى كيوينا مركز المسلمين تولي يسنيكوا إلى قرقار إلهي قرقار كيسا هي نحريس إلهي هي بركات السماء والأرض بين تبع إلهي وحوكوا على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام دين با إلهي ربا دين نولشينا كم وقت دين دادك اسكشيكتان ما هو حل دونه مسلم هذا القيس مسلم يعني سعود قيس مسلم يعني عروش قيس مسلمتها دقالي قيس مسلم يعني وقت قيس مسلم يعني ما دونه يعني نضوف مسلم سدو دقالا مسلم دقالا مسلم هو معي دقالا هي ميل إلهي ورالي كاهين كبحين مايو على الشيء ده وعلى هاي حرمي قليل ما حلال مرض بنون حلال مرض وعاقوا علم ولا علماء مسلم وحلال ربعين توبت جنا مفك مسلم توبت داي مفرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن يربع وش خجر خراش كم كيرجر خراش عنتو كان عنتدي أبو بكر وكبرج markaasuu yidhi awal waad iweydiini jirteen maanta hamaad iweydiisayaa khaliifata rasuulillah markaasuu warwaruna xaggeed ka keenta maanta wuxuu dhihi zaman jaahiligii baan qolo u faaliyo faalkayguna maba hagaagsanayne washqaayad aan ku lahaa bay isoo siiyeen oo cuntada kaaga soo qaaday farta intuu abubakar afka geliyu iska matejiyey biyuu ka baday uu matagay uu ku celiyey yaa abaabakar luqmadii way kaa soo dhacdeen jooji baa laga yidhi والله ما كنت أرتاح ولا هذين اللقمات وح كاملة أي عراشة لكم باقي نقول لهاي وأي الصوب بحذين إلا نفط ولا الصوب بحذين ويانا مع النفط ولا صار لهم مع نوع حديث يا نبي محمد مغلي كل جسم نبت في الحرام فالنار أولى به جلك استو حرام ككرة نار تهو حقل عند وتمانو هذا النبي محمد كم مغلي أي اللقمات حرام أفكار عراشة كويس عبادة بدني ما صلاة بدني ما صوم بدني ما قرآن خرس بدني ما حج بدني عبادة بدني دوا محي وحلال بأنه غف ورع اتق المحارم تكن أعبد الناس برسوله إلهي كحرمك كدر وما هريرو ذات كنيك أقول عابد سبا ضمن رسوله أقول عبادة فعل على الله الأصل حرمت وحكى جني وإيمان على المسلمة حق الناس كان نظيف وين وحل وجه دقال المسلمة لو بهيا دقال أقول نقول دقال من في عقبها بس قبيلة عصبية قبيلة أنا كبحي أو كبحي الطاعة إلهي مصاريف الرجال مساجدك قرآنك معلم قرآنك علماء النفقين تودا هي ذلك دينته هي قرابة هذه هيك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وحير إنك جعل إن أرزاقات الله بركايو والله بلاريو عمري سنة الله ديريو رحم كيس هاحي اليوم رسولكم صلة الرحم أضف كلية عمرنا والله دارين أرزاقنا والله واسعين القبالة أي وحوق يكو أي حيستان يكون يسألوا ما وحي سعوني حبرتوا يده ما وحي يقعوني وذلك مركب وسيد لمن نير وينادوا سكرات وغدنا وحا بانك ويا أي سوء ضرب ما بلين أي روح ولا حلق
iyadna aygayga waxa wili isna aygiisa ubadkay dhaleen miya ismaba yaqaanaan 18 hadday gaaraan ilmaha dhaleen ismaba yaqaanaan ma wala sanatu rixim laana sanatu rixim ka iimaanka ka islaamnimada wadata iimaanka ayaa wata sanatu rixim marka waxaa la doonayaa walaalayaal islaam baa ilaahay muslimiin baa ilaahay naga dhigay inay diintaasi kashkeed iyo laabteeda ka muuqato laba shay baa u sababa walaalayaal in la helo dacwad iyo tacliim in la helo dacwad waa maxay dadka muslimiintana masaajida loogu yeedhayaa ziyaadat aliimaan baa loogu yeedhayaa masaajida inay camiraan baa loogu yeedhayaa salaada jamca inay la tukadaan baa loogu yeedhayaa qafladda inay ka soo kacaan oo majaalisa dikriga yimaadiin baa loogu yeedhayaa dadka gaaladana iyagana islaamnimada loogu yeedhaya dacwadda ta muslimiinta loogu yeedhaya waa maxay ilaa ziyaadat aliimaan ilaa tacliim addiin ilaa tacmiir almasaajid ila almasjid ila alsalaa ila taacati illahi baa loogu yeedhaya muslimiinta ila tamasuk bilkitaabi wasunna loogu yeedhaya gaaladana islaamnimada loo bandhigaya iyaga laakiin nasiib darra maanta muslimkeennii baa dayacana beri dhexdaaya nin faransiisa ayaa jabuuti soo islaamay markuu soo islaamay baa gabadh buu markaa caashaqay oo gabadhii buu doonay iyadaana sabab ahayd islaamnimada baa markii gabadhii la siiyey ee loo meheriyey la oran islaamo muslimeen ayaa markaa gabadhii aqal ugu diyaarsaduu raba inuu la wareego ayaa odaygii inanta dhalay baa ku yidhi dee hal maalin ahaan baad masaajidka aan ku kulannay waanad islaamto inankaygii baa tahay deene wuxuu yidhi dee masaajidadiina waddankiina waan eego marka la addimo buu yidhi salaada la addimo masaajiduna dad baa tega dadna dibadday ku hadhaan weliba dadka dibadda ku hadhay baa badan markaa muslimkaa maskiidka tegaya anu kumaa meerine kuwa dibadda ku hadhayaa ku beerahay ininkaa naga fiican masaajidiina way camiran tahay allah idin siyaadiyo marka muslimkii maanta xaalkiisa waa cinkaas muslimkii baa dayacan muslimkii baad arkaysaa xataa qaarkood salaadiiba ay dhaafayso weliba magaalooyinka waa dadku abarooyine miyiga markii loo baxay jamcadada lugeeyeen qisooyin cajiib ay soo arkeen gariib oday 8 jira oo xataa aan garanayn laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah salaado tukada laga yaabaa jumcina ciidaha tukada bas inay muslimiintu salaada ka tagaan maxaa keenay waa tarku dacwa in zamankii nabiga sal alla alay slam qof muslima bilaa salaad la waayana maxaa keenay dacwaddaa qaaymahay oo iyaku diinta iyo iimaanka way kasbadeen asxaabta rasuulka way kasbadeen innagana islaamnimadeena iyo iimaankeena waa ku dhalanay maanta wuxuu le waa muslim baana maxaa laga rabaa waa tukadaay maxaa laga rabaa salaaduna bay culimmadu leeyihiin waa halka diintu ay ka bilaabatay soo halkay ku dhamaato ya war halkee noo maraysaa nin baa yidhi waan islaamaya nin gaal ah mitir waan islaami rabaa halkee looga bilaabay soo qubayso shahaadateynka loo laqini maxaa ku xiga salaada tuko soo ma haddii uu yidhaahdo markuu salaadii tukada yidhahdo soo diinta igama dhanno maxaa la odhan may haddaad bilowday bilow baad joogtaa bilaab halkaa dhig nin maalqabeena nin u yimid sheekh wuxuu yidhi meel baan bakaaraha ka furtay waa meel lacag badan baa ka soo galaysa qof aan aaminaan u baahan oo diin leh in yaroo wadaada oo diin leh oon halkaa lacagta u dhiibtay iisoo doondoon markaa nin buu qabto uu geeyey ninkan balwadna male sigaar ma cabo waa nin saaxibu diina waa khayr badan yahay waa laa nusaki cala allahi axadu markaasuu ma nin ahludiin ah aw ahludiin inuu ahludiin yahay maxaad ku keentay bilood igu keentay ku garatay de shanta waqti miskiidka ku tukadaa buui bal sheega dhegeysta macay dhegeysta shanta waqti haa wuxuu yidhi war shanta waqti waa la wada tukadaaye inuu ahludiin yahay ninkan maxaad ku garatay bilow sheekh shanta waqti ninkan miskiidku ku tukadaa haye
waliba safka horu xagga midigta ku tukadaa wax kale u sheeg wax kale maxaa ka doonay buu salaada subaxna waa ku arkaa masjidka diintiisii dhannayd wuxuu ku soo koobay salaada uu tukada macnaha salaadu waxay naga maraysaa maanta innaka halka diinteennu ay ugu dambaysay ku dhamaato muslimka jadiidka soo islaamayna waxaan leenahay haddii uu yidhaahdo soo igama dhanno mar haddaan tukaday may hadday salaadii waa bilowgii salaaddii islaamnimada waa bilowgeedi muslimkii jadiidkiina waxaan leenahay salaaddu waxay kuu tahay bilow muslimkii qadiimkiina waxaan leenahay marba hadduu tukado diintii u haystaa waxayna culimmadu leeyihiin arkaan alislaam shanta rukun ee arkaan alislaamku waa rukun masaajidkan imika 8 rukun baa ayaa dhexda inooga muuqata 8 rukun maxay hayaan saqfigii bay hayaan nin baa boos buu leeyahay seeskii buu sameeyey 5 rukun buu ka taagay aqalka muu bilaabay mise uu dhamaystiray balay sheeg walaalahay heerka ma soo rari kara roob ma ka celin kara qorax ma ka celin kara may aqalkaasi wuxuu marayaa bilow mise dhammaad bilow buu marayaa waxay culimmadu leeyihiin buniya alislaamu calaa shanta arkaan alislaam waa islaamnimadii bay hayaan buu rasuulku maxay hayaan shantani diintii islaamka ay xajinayaanay hayaan islaamnimadii marka waa maxay إلا شنت أركان الإسلام وشهادتينك وصلاتي وزكدي وصونكي وحجك شنت حتى الله يمننا وعو نبي نو شيغا يا حديثك سفي عنه معلوماتك سواد هيسار ودقت انا بلغا يا بقاركينه انه شنتن تيري اي دين الاسلام كلا دول صار اسلامنimadi haya اذا الاسلامنimadu waa maxay marka shahaadatayki waxa nabigu waatiir salaadi waatiirkii la zakadi waatiirkii saddexa soonkiina waatiirkii waa rug gaafa xashkuna shanta maxay haya marka buniyal maxay haya islaamkii bay haya islaamkii marka waa maxay haddii la yidhi shahaadataynkii islaamnimadii bay haysaa oo salaadii islaamnimadii bay haysaa oo zakadii islaamnimadii bay haysaa oo soonkii islaamnimadii bay haysaa oo xajkii islaamnimadii buu hayaa islaamnimadii waa maxay innakana maanta waxay naga taagan tahay ruwan tukadaa yaa rusoo muslimiin maxaa laga rabaa waxay leeyihiin culamadu xadiidkan yadullu cala ibtidaa buniya alislaamu calaa 5 wuxuu na tusinayaa waa bilow weena dhammaad maaha xadiiskan wuxuu na tusinayaa waa bilowga islaamnimada waana bilow buniya alislaam waa asaaskii waa seeskii hooseeyey iyo tiirashii weeyaan waxaa kaluu nebigu sheegay bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq buu nebigu yihi aniga waxaa adduunka la ii keeno la ii soo saaray akhlaaqda teeda wanaagsan inaan nolosha bini aadamka ku dhammaystiro itmaam dhammaystir war aqalkii halkuu marayaa dhammaystirkii buu marayaa maxay markaa inaga hawshu ku jiraan ka dhigan tahay daaqadihii buu gelinaya marmarkii buu samaynaya biyihii buu gelinaya laydhkii buu kusoo taglaalaya gogashii buu soo diyaarsanaya eridadii buu u gelinaya dhammays aqalkii finishakii baa ku jira finishakii rajigii buu marinaya waxau nabigu inoo sheegaya labada xadiis eega hadda xadiiska horena waa bilow halka diinteenu ay ka bilaabanto xadiiska dambena akhlaaqda weeyaan islaamnimadu akhlaaqda waa halka islaamnimada ku dhammaystirmayso waata saxaabada rasuulku caalamka markii dambe ay ku qayireen ee dadkii adduunyada joogay ay yidhaahdeen islaamnimadaasaan u baahanahay waatii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay ee quraysh oo dhibaatadii nebi maxamed ee saxaabada ay ku hayeen la yaqaano afarta dhinac markuu ciidan ka soo geliyey quraysh oo dullaysan ayaa nebiga hoostiisa timid markaasuu nebigu yihi maxaad u malaynaysaan maanta qurayshay inaan lanigu samayn doono maxaad u malaynaysaa halkan bilaal baa jooga halkan camaar baa jooga halkan khabaab baa jooga raggii halkan abudar baa jooga halkan salmaan baa jooga halkan
raggii magaalada maka kolkay muslimiinta ahaayeen dhagaxda intoo la duldhiga la cadaabi jiray oo ciz iyo sharaf iyo karaamo nabiga ku agjooga sidaa wada cadhaysa saas haddii nabigu maalinta odhan lahaa kurka ka wada jara waa ka wada jari lahaayeen markaasuu yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad u malaynaysaan maanta qurayshay inaan igu samayn doono suhayl binu camar baa hadloo yidhi khayr baan malaynaynaa anagu khayr unbaan rajaynayna waxaan u malaynaynaa oo rajaynaynaa oona tahay walaalkaygii wanaagsan ee deeqda badna ee dulqaadka badna ee naxariista badna uu walaalkaygii wanaagsan anagu noo dhalay baa tahay markaasuu nabigu yidhi laa tahriba calaykum alyawm yakfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin sidii nebi yuusuf calayhi salaam uu walaalihii uu ku yidhi maanta laynaga aargoosan maaye ilaahay dembigiina ha dhaafee waana arxamu raaximiin ilaahaye sidii nebi yuusuf walaalihii uu ku yidhi maalintaas ayay aniguna inagu leeheen iska noqdo aqaladiina ku noqdo rusul xor baatiin iska noqdo maysan noqone kulligood halkii iyagoo taagan bay idhahdeen ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فتحك علماء وحيدا على قلوبتا إلى هاي سوجيدين مكة إلى هاي نبي سوفري دتك نبي محمد عدو قوها إلا تقال لي كنت ذلك نورك إلى هاي بختيان أيا إلى هاي قلبي قوي فري ده نمر قاس النبي قال لي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وعذر كيساب النبي قال لي دتك دين إلهي أفواجا نصوغ الله والنصرة ولا لا يعني يقرقاركو ما هن سلطتك قاركو أي ملايين نصرة يقرقارك إلهي وحويان وقلوب تحد نيد وإلهي حق وجعل السنة وقتل هذا أنا في الإسلام بأننا حج شريعة الإسلام كان دولنا اللي حجاج بن يوسف وأرض الحجاز وقطعة عبد الله بن الزبير سوى سفر أياننا عربي غير بادية سكوني بادية أمركو كسو أمركي كوفا لو رجي مركا سوية من دولة وكولي حكيت سو عطايا هذا قاسم هذا هذي قام مرة يا مكين مركا سوية حكيت كتي من دولة وحكيت دولة العراقي حكا سورة العراق وكوفا مركا سوية ما تقانا إنك العراق كوالي يقولون لي بيو هاو أنا قلنا من حجاج بن يوسف لقايو ظالمه فاجره فاسقه مجرما خاصة باش حكومة بيو وهذا ما مو جوجود في قتل من دولة كيو مركز لا يحشو تيجي يا الله هذا ولا هنا كمان بلا وحجاج بن يوسف وصل كله يتكاس markaasuu de xajaajka aad sidaa u caayaysa dee waa aniga dee aday kuu taalaami xagga qosole adiga qaadi wy aniga daalim baa tahay rashuun baa tahay daluun baa tahay yaa mujrim baa tahay waxale wixii dee bini aadamka lagu odhayo dhan buu ku yidhi markaasuu yidhi intaana ku delin qur-aan baa ku weydiina qur-aanka wax maga taqaana markaasuu wuxuu ilaahayga maray baa ka aqaana بل أخرج كيلو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا قال القرآن قال كل يا رسالة بعد سأسأل وقعنا وأنا خريج كل علم له ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا قال والمحل هذا يقولوا آمس من القرآن أنا كبر إنه مركز بل أخرج حجاج بقى آخره ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ده الزمن كاغا ما هي ممتاز تيانا نو آخرنا يبقى الزمن كاغا عليك زمن كاغا شيء سيدي آياتنا أي شيء يسو وزمن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر يا ويان زمن كدتكو أي دينتا أفواجا نصو قليين أما هذيك الزمن كاغا حجاجو لا تقول دينتي إلهي بكم حيان بكم حجاج مركا وحو هيستيرك والبا إشارو برج قعنتو برج ودوس لا إلى الله سماء كان
بدشوا يربروا هدوش يسكوا قبطوا وحسنين كان يقطع من مدحوا يربروا هدو مدح سايدا وقورتك القوية مركا حجاج مركا إشاروا بحيين مركا أساسه يريد معك يقطع قورته ودرية هل مركل ينكين الله ما داد بنود ولا نغاجيان حاجة يقطع مركا بحبوا أخي سأقرأ يوحوا أخي ninkii markaa seefta soo qaatee la rabay inuu ninka acraabiga uu qoorta ka jaro loogu talagalay oo waxaa la arkay qayliyaya oo sida qoriga u sii dhacayo nafta ka dhacday markaasuu xajaaj ninkii uu ku soo bodo wuxuu yidhi ilaahay baa kugu dhaariyey ducada aad naga daawada iska ducada aad nagu akhriday iska soo jeestay ducada aad nagu akhriday ha nagu celin وأكون نبت قليلين أسنبت قليلين مركز الحداد هذا هو حيث عيدا إشارك وقول الشقين يا أنا كنا وحان هيسنا ربه يعلم ما في الصدور إله وحان هيسنا والعلاقة لا نهي عربك أنت أنا كسو سارين الله برقة لا بتيدا وحكو جريبا أزدينه أي أزدينه سلامات ورأيت الناس يدخلون في دين الله قريش عن بكرة أبيهم إسلام ماذا يسوق له عمر بن وهب النبي قوي مدوي إلى ذلك صفوان بن يري يا نبي الله هل نبت قليل وأن آمن وأن نبت قليل نبي يربوكي بدو كسوق على سوق الربعين وقوي ما دو صوت الله بحاجة يمام هذا الرعب كم حاجة كورع سوينا دي دشيت ما دونيس تو دين كاجينا عني قاعد دول صارت وبد كاجينا عني قاعد ديبتي أي دين دين محمد عليه الصلاة ما أنت من عند شوتي متى بكري مرقاس المي هذا جئتك من عند خير الناس وأحلم الناس وأبر الناس وأوصل الناس عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك هذا يرنيك أكتيس عن كلمة ما قرن يسكو يحي ضدك إلى هاي أموري كيف أقول خير بدنا ويا محمد عليه الصلاة والسلام أقول بار السنة أقول نحرس بدنا أقول دلقات بدنا أقول حريرين فينا كأكتيسان كلمة هذا يرو لقد دني ماي الرع مركز العلامة كالسوقات محمد أبو الرع هاي يسمى الروفي فرس كانت كل سوقات وحيبتي وعمرها يا مارك ثاني أي النبي قال له قومي مكة يا رسول الله وانا كذلك يا صفوان يا علامات بيقول النبي كسر قال علامات السي قوي مركا النبي وستين مذوبة دكتور وكوستين ومرنا علامات كده جنيه انتوا النبي وسكس سوق هذا والنبي الواقع بقى يجي تصبوا كده وقومي النبي يا كشرف القوي هل من وقال إسلام نمدي النبي وقوي سبحي إنك أنا ما أنت مسلم كي نلنا شاء ضيعنا مسلمين تهنقوين المساجد صلاة هنقوين خير كهنقوين عبادة هنقوين وقت بحية مدة كدين على ما أنت أي يقول لي دتك إياك الدين مجدنا ولا دوه ندارنا كويس مودي من هذا كويس وكويس ولما لما بلود بقص فسح قادم ممكن لما بلود دين تنقو قسم مايو مكة ديسك جوجي وذاك دوت الله ما بلود إسلامي ما واحد كده كتاي هذا دوتنا والإسلامي هذا دوتنا مركز على قول سورين دولارين إن نلقي دوتين عندنا كوت لقانا مرة ما ينفع صلاة دي عصر مسوقة لما كان يقول تجينا عليه الصلاة والسلام فكان مستول تابوساسه يا عمر مكيل حي سمينا يا صلاة دي تجينا عصر ومحمد ما تجيها محمد ما تجي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم نبو الصلاة دي وكبه حق الصلاة يا أبا وهب أنزل مكيل يا أبا وهب فرسك كده ودادا عوز كفر يسمو مكيل فقال ما دادا عليه فرسك كده مالي برادر ماذا محمد وصولي بنيك ها أنا وصولي ماذا يقول الله بلود وآمن ها الله ما يقول الله ما كوبون درني أفر كده يقول الله يسوع أنا عم كيل صوت هذا الشاشة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة فرسك كده
يا عمر كحي عمر وكحي عمر وكحي عمر بن وهب أقل قيسي جي عيال قيسي أنا أصور لي أقل كوبوكين أصحاب تيدنا أولا إعلامي واحد كتر على أفر بن وهب للسياني كاسنا مقنقليو قال لي مركي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حديث سيدنا عمر بن وهب بن صوك حيا صفان بن أمية أي النبي أكتسل رسول فريسيا مركز صلاة دوتو كده يانا دبوا قبل حاجة وحكا دمتو فريسيا وضع جهاد أمرك على بحري مركز النبي يقول صفان وهي سلاح في عم بالهي سلاح هذه حكون دقال قلي ما ذي ديبي بوكي مركز شوي مقصب ما مسوا سمان حوق ما تقدر قارصة مسوا سمان ما هو سمان هذا إسكاله ولي بوكوسو علم دونا بوكي وهجا بوكولي أوكي هذا أنا يقول لك راح كور من دور الدين راح من في عنه مركز اللي يقول هو راعي وطلمه حتى غزوة دور وقت قيد وطلمه صدح غزوة مياه مسلمة غزوة أي نبي يقول راعي بقى اللي هي طلمه لدت قال النبي كمركز كله ليه غزوة هناي مركي لغا سو نقدي غنيمدي خوله غارada laga soo xeeday magaaladii Makka dhinac walba laga soo geliyay laba buuro dhexdoodana waxa dhex socda geel iyo lo'od iyo arigi sida uu circiray ayu Safwan bin Umayya sida uu eegay raguna waa iska xoolo jecel yihiin goobta sida Soomaalida weyn saas u eegay geel horu tuur qariino wuxuu ruuxa soo dhaadaan ilaahay markaa uu nabigu la yareeyay ya aba wahab bukeeyo markaas labbayk ya Muhammad bukeeyo أيعجبك هذا؟ لبدا بورد حولها نحسعد هذه المسيلة هذا الكورن والله في عنيد هذا اسكال حيسب كل هكذا طلب لبدا بورد نحدو قيلي لودي أريقي فرده بقشي يا له صفوان بن أمية اسكال كحيسوها الكاكلتي عدكو قيمة يسمتلت هذا لا استعمال ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس النبي يقول والله نفسنا وحب عكرتها ما جرتو إلا نبي كنت جرتم ويانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله تلقى حولها انت لك إسلام هذه حتى بالنبي قال له جوغان ولا يدادو الدنيا ده وحيا الله أيا الله قصين دين الإسلام كان نقو ما يلي لهاي ما يلي بل هذا النبي قال له جوغان رجع العكا كو إسلامي إجيل كو إسلامي إدهب كو النبي كو إسلامي ومؤلفة القلوب هاي بالكدين هدين هذا الدنيا ده وحي الله ودم بالله قصينه دين النبي محمد كم هدين هذا كم يبحر ما دنا وحنا شاقة يا مسلمين ضعفاء الإيمان إسلام لماذا دين أن يروح عند أفسانه الهنغوري يبيع دينه بعرض جماعات رجب وتياكم بعد وحوت يدا ودحيا صوت السودان يو كينيا مع كاكوما يا سو كاكوما معي وذي باوي ميد جماعتي قاعد هذا رينا كيجي بقالو بيو ريدو بي كاله ييغادا بري با لوغا ييرا حفيسك قحوتيغا او مغعيسا لوgu soo dhajiyay waxana shard looga dhigaya fiisaha wadanka uu ku galay dhulka gaalada إلا الصيو وعشرة لوغا دغيا الكتاب كودو دوست قران ودغيو دلمين يا جماعه هذا الراع محاد عليه ان الجيبه هي ردوبيه دركو رددو ساريه كان ييغا بس جماعه دي انت سو راعي ودغي بي كوداد انك او غلنا دوسك جو markaas u galan yarkii yara wala fadhiistay assalamu alaykum iskawara jamaacad jibti nigati midana markaas أباهي بينقولوا قالوا بيا صباح بس كجرنا يعني يقول أنا ما قالوا بيقول الإسلام لماذا قلبك كهستاجو واحد قالوا له السماء إليه نيتكم ما السماء إليه ممكن ما يسوعني ساتس ما يسوعني سعر واحد السماء يقول يهين ها نيت إجماع بود قدام براد ما كوجارة ياي الإسلام لماذا أصلا شيء هل كان زمان المسلمين تؤمنون يبيع دينه بعرض والله ثم والله
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 sano ka hor wixii uu nebigu sheegay oo dhan maanta way daahireen caalamka haddaan culimmadu waxay haddaan dacwadda ka shaqayno afar faa'iiday muslimiintu helayaan hadalka waa nagu dheereeyay waa soo gaabinay faa'iidada koobaad muslimiinta diinta inta ka haysata ilaahay diinta istiqaamo ayuu ku siiyey wax naga ridoobo diinta ka baxa la heli maayo baabu ridda ilaahay naga xidho way joogsaneen muslimiinta albaabka labaad ee laynoo furaya mataqaanaa haddaan dacwadda ka shaqayno cusaada muslimiinta kuwa macaasida iyo kabaa'irka iyo balwadda ku dhex jira ku dhex qariqan baaba tawba ilaahay u furayaayo iyaguna way toobad keenayaan kii mukhadaraadka iibinayay kii khamriga cabayay kii balwadaysnaa kii caaqul waalideynka ahaa kii dhibaatada badnaa ayaad arki doontaan isagoo noloshiisa ilaahay badilo miskiinka soo galay waa imisa ta saddexaad gaalada caalamka ku nool intii ilaahay hidaayadda ugu talagalayna baabal hidaaya ilaahay u furaya baabal hidaaya wara'ayta annaasa yadkhuluuna baa imad doonta wayna socotaa maanta caalamka ta afraad muslimiintu hadday dacwadda qaataan ee dadaalka diinta u kacaan muslimiintuna ciz iyo sharaf iyo kor bay u soconayaan iyo muwaafaqo iyo midnimadoodii baa ilaahay soo celinaya gaaladii wixii gaalada la socday ilaahay hoos buu dhigaya saa darteed dadaalkaa diinta